waxa ay degan yihiin guri ka samaysan cooshada oo aan ka celin karin qoraxda qabowga iyo biyaha balse dadka halkan degan ma aan kuwa aan waxba haysan waxa ay ka yimaadeen dhul qani ah waxaana ka soo kaxeeyay duruufta waa shay kaliya ayaan isku nici karin duruufo badan ayay qabaan dadkan waa kuwa wadanka barakacaan u joogo waxaana la rabaa in laga warqabo xaaladooda caafimaad tan waxbarasho iyo tan noloshooda kale adiga muuqaalkan hadda daawanaya waxa haysataa meel aad ka gasho inta aan kor ku xusnay COVID-19 oo dunida oo dhan gacan ka taagtay balse iyagu haatan ma haystaan waxa ay uga hortagaan waxayna la daalaadhacayaan noloshooda kale warbaahinta SBC ayaa u kurgashay xaalad dadka barakacayaasha ah waxayna u sheegeen inaysan waxba xilligan aysan gacan ku hayn balse ay qadarta alle u qoran tahay waxayna ummadda muslimiinta ka codsadeen in la soo caawiyo maadaama ay foodan ugu soo hayso bishii barakeysneed ee Ramadaan gargaar laga soo gaaro inta labaad hadda waxa fooday nagu soo haysaa ay hal isbuuc naga dhiman yahay bishii Ramadaan hadda dadka hay'adaha iyo dadka muslimiinta ee hadiyaan la yiraahdo bisha Ramadaan barakeysanaya dadka hiiliyo hooba inay la soo gaaraan ayaan ka codsanaynaa annagoo ah kaambar waaba la yiraahdo oo ku yaala gabaldhaca magaranaysa magaalada Burtille halkaas saasaanu leenahay walaalayaal waxa la wixii ummadaas dhibaataysan daneynaya adduunka meel kasta kaga sugnaado wuxuu doono ahaado waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha deeqda bixiya inay dadkaas hiil iyo hooba la soo gaaraan oo ay ugu daran yihiin wax la cuno iyo hooy la galo bacay dabayshii roobkiiba nagala tagay taliisha soo daysan waxaan galliyo hooy ma haysano waxaan galaa noogu daran buushashkii dabayshii baa la tagtay waxa salaanada in gurmad nala soo gaaro oo wax naloo qabto wax la cuno u dhamaada iyo wax la cabo waxaan idin leeyahay dayacaan ku jira waad aragtiin meeshaan hooy lahayn waad aragtiin ina gurmad degdeg nala soo gaaro oo guriyaan noogu daran cunta way dhamaataabe guriyaan noogu daran yadal iyo dabadba nala caawiyo hay'adaha samafalka iyo Puntland oo dhan waxoogaagi yaray noo keeneen baaha waxa naga fiiqday dabayshii iyo waxa naga fiiqay roobkii hooyaan galama haysano waxaanu cunno ma haysano waxaanu rabnaa noloshii adduunka aqalkaan geli lahayn baa noogu daran soonka soo socda wixii aanu ku soomi lahayn dhaqaalaha baa noogu daran wax alla waxaanu ka haysano noloshii adduunyada oo biyo iyo inta ay rasuuliga waxaan ka ahayn ma jiro waxaan u baahanahay in loo soo gurmado oo kaliisha daaysa aqalana loo dhiso dhismaan u baahanahay in lagu soo caawiyo raashin baan u baahanahay in la siiyo noloshii adduunka wixii aan ku noolaan lahayn ee dadka muslimiinta uu nagu dhaama in uu noo keenaanu rabnaa wax alla wax hadda waxoogaagi yaraa bacaayna loo keenay reer Puntland noo keenay in nagu soo caawiyeen waxa naga fiiqday dabayshii roobka wax naga celiya ma haysano hadda soo daaya kaliisha hor kale ee bilaabantay ma haysano waxaan rabnaa in guriga naloo dhiso salaanka bacdigeed waxaan joognaa kaambar waaqo Burtille ku yaala hadda ka hor aad iyo aad baa naloo booqday haddana roobab ayaa da'aya roobashaas buushashkii waa naga bacdi way naga biday wax walba aan u baahanahay dhinaca kale xildhibaanada Khadra Maxamuud Cali oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burtille una qaabilsan dhinaca dhibiyada ayaa noo sheegtay inay wax ka qabanayaan baahiyaha ka jira kaamakaasi sidoo kale waxay sheegtay inay hore ula socotay xaaladda barakacayaasha waa sidee halka u dhigtay Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC عاصمة اللواد قبل كنوغال